A verb ficilka is a word waa eray used oo loo isticmaalo to describe in lagu qeexo ama lagu sharxo an action ficil. It is also known sidoo kale waxaa loo yaqaanaa as a doing word eray oo sameeye ama fal sameeye ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Welcome back. Haddii aad horey noola sii joogtay soo dhawow mar kale. Haddii aad nagu cusub tahay waxaanu ku leenahay welcome, soo dhawow. Hana iloobin in aad tidhaahdo subscribe, like and share. Cashirka maanta waa mid aad iyo aad u xiiso badan. Waa lesson 27. Lesson 27 waxa uu ku saabsan yahay the 8 parties of speech, sideedda qaybood ee hadalka. What is 8 parts of speech? Maxaa weeye 8 parts of speech kan? Maxaa lagala jeedaa? 8 parties of speech wax kale ma aha. Waxa weeye waa 8 qaybood oo hadalka loo kala qaybiyey iyada oo erey walba la siinayo doorkiisa ama doorka uu hadalka uu ku leeyahay ama jumladda. Marka grammar ahaan ama naxwo ahaan ereyadii ayaa waxaa loo kala qaybiyey 8 qaybood. Marka erey kasta group ama koox ayaa lagu daray oo ah groupka ay isku shaqada yihiin ama isku shaqada ay qabtaan. Marka there are 8 parts of speech. Waxaa jira 8 parties, 8 qaybood of speech oo hadalka. They are waxay kala yihiin verb waa ficil. Adjective waa sifeeye ama qeexe. Noun magac. Pronoun magacu yaal. Preposition meeleeye. Adverb falkaab ama ficil caawiye. Conjunction isku xidhe. Interjection waxa weeye waa erey oo markaasi muujinaya dareen ama qiiro oo markaasi aad u adag oo u daran. Verb. What is a verb? A verb is a word used to describe an action. Ficilka waa erey oo markaasi lagu qeexo ama lagu sharxo ficil ama action. It is also known sidoo kale waxaa loo yaqaanaa as a doing word erey oo sameeye ama fal sameeye ah. A verb ficilka is a word waa erey used oo loo isticmaalo to describe in lagu qeexo ama lagu sharxo an action ficil. It is also sidoo kale known waxaa loo yaqaanaa as a doing word ereyga samaynta ama ereyga fal samaynta. Waxaa muhiima inaad fahamto 8 parts of speech ma aha wax hal video oo keliya lagaga hadli karo ama lagu soo koobi karo. Run ahaantii 8daas qaybood qayb walba waxay u baahan doontaa video gooni ah in lagu faahfaahiyo oo si faahfaahsan looga hadlo. Kuwa qaarkoodna waxaa laga yaabaa dhowr video inay noqdaan ama ay ka bataan. Laakiin waa introduction ama horudhac ayaanu ka bixinaynaa videogan hore. Kadibna videoyada xiga mid walba gooni ayaanu u faahfaahin doonaa oo aanu u soo qaadan doonaa. Marka la yidhaahdo ficil keliya, ficiladu waxay u kala baxaan sida regular verbs, irregular verbs, linking verbs, transitive verbs, intransitive verbs, finite verbs, infinite verbs. Marka waxyaabahaas oo dhan videoga goonida ah oo verbka aan uga hadli doono ayaanu kusoo qaadan doonaa. Laakiin introductionkan yar ama horudhacan yar tusaale haddii aanu ka bixino, they eat lunch at 1 o'clock every day. They eat lunch at 1 o'clock every day. Maalin kasta waxa ay cunaan qadada 1 duhurnimo. They iyaga eat waxay cunaan lunch qado at 1 o'clock
kowda duhurnimo. Every day maalin kasta. Marka ficilka waa eat. I wake up at 6 a.m. every morning. Waxa aan soo kacaa 6da subaxnimo subax walba. I aniga wake up waxaan soo toosaa ama hurdada ka soo kacaa at 6 a.m. 6da aroornimo every morning subax kasta. Tom walks to the bus stop. Tom waxa uu u lugeeyaa ama uu u socdaa boostejada ama meesha uu baska istaago. Tom walks wuxuu u socdaa ama u lugeeyaa to the bus stop boostejada ama meesha baska istaago. You study English every day. You adiga study waxaad barataa English ingiriiska every day maalin kasta. You study English every day maalin kasta. ficilada oo jumladahani ku jira waxa weeye study, walks, wake, eat. Adjectives. Adjectives waa sifeeyayaal ama qeexayaal. Adjectives are words that describe or modify nouns. Adjectiveska ama sifeeyayaasha waa erayo oo markaasi qeexa ama wax ka bedela magacyada. Adjectives are also known as describing words. Adjectiveyada ama sifeeyayaasha sidoo kale waxaa loo yaqaanaa describing words, erayo oo qeexaya ama sharxaya. Adjectives sifeeyayaasha are waxa weeye words, erayo that describe kuwaas oo sharxa ama qeexa or ama modify wax ka bedela nouns magacyada. Adjectives sifeeyayaasha are waa also sidoo kale known waxaa loo yaqaanaa as sida describing words, erayo oo qeexaya ama sharxaya. Marka sidii ficilada oo kale adjectiveyada iyagana aad ayay u ballaaran yihiin oo waxaa loo kala bixiyaa sida absolute adjectives, comparative adjectives, superlative adjectives, indefinite adjectives, possessive adjectives, attributive adjectives. Kuwaas oo dhan videoga adjectiveka aan kaga hadli doono ee goonida ah ayaanu ku faahfaahin doonaa. Laakiin erayada tusaale ahaan adjectiveka ama sifeeye noqon kara waxaa ka mid ah sida old. Old waa wax hore oo ama wax duug ah ama duq oo markaasi gaboobay. oo sidoo kale young yar. Green sida midabadoo kale waa sifeeyayaal ama adjective oo cagaar oo kale, blue oo kale ama big wax weyn oo kale, small wax yar. erayadan oo dhan waa sifeeyayaal ama sharxayaal. waxa ay sharxayaan ama ay sifeynayaan magacii ama nounkii ka dambeeyey iyaga. Tusaale ahaan an old man. Man waa noun, old waa adjective. Marka ereygan old wuxuu wax badan inooga sheegayaa ama faahfaahin inaga siinayaa xaaladda ninkani uu ku sugan yahay. Marka an old man nin waayeel ah ama nin duq ah. A young lady. Adjectiveka waa young. A young lady haweeney da'yar. A cheerful person qof furfuran. A cheerful markaasi waa adjective ama sifeeye. waxa inooga sheegayaa qofkani dabeecadiisa. A cheerful person qof oo markaasi furfuran. A green hat koofiyad cagaaran. A green hat koofiyad cagaaran. Green waa adjective waa sifeeye. wuxuu sifadiisa ama qeexis uu naga siinayaa koofiyadda. A green hat koofiyad cagaaran. A blue jacket. A blue jacket jacket oo buluug ah. A beautiful flower. A beautiful flower ubax qurux badan. Beautiful waa adjective sababtoo ah wuxuu wax inooga sheegayaa ama uu inoo sifaynayaa flower ubax waa ubax qurux badan. A big house. A big house waa guri weyn. Big waa adjective wuxuu noo sheegayaa guriga intuu la eg yahay. A small car. A small car gaari yar.
adjective waa small. A long road. A long road. Jid aad u dheer. Waa jid dheer raacyada. Nouns magacyo ama a noun magaca is a word waa eray that names kaas oo magacaabaya something shay such as sida a person qof, place meel, thing shay, or idea ama fikir. A noun is a word that names something such as a person, place, thing, or idea. Magacu waa eray kaas oo magacaabaya shay sida qof, meel, shay ama fikir. Sida kuwii ka horreeyey magaca isagana waa waxyaabaha ugu badan oo markaasi u baahan doona faahfaahin aad u dheer in laga bixiyo. Waxaan u malaynayaa inuu dhowr video u qaadan doono. Magacyada waxaa loo kala bixiyaa sida concrete names, magacyo oo markaasi la taaban karo, shay la taaban karo. Abstract nouns, magacyo kuwa aan la taaban karin ama sida fikir oo kale ama cir oo kale ama waxyaabahaas. Sidoo kale countable, wax la tirin karo, iyo uncountable, wax aan la tirin karin magacyadooda. Sidoo kale collective nouns, magacyada oo koox ama group oo wada socda. Compound nouns, magacyada oo hal eray ka badan ka kooban oo la isku daray. Possessive nouns, magacyada oo lahaanshaha sheegaya. Regular iyo irregular oo plural nouns ah. Plural and singular yacni jamac iyo keli. Marka aad iyo aad ayay u badan yihiin magacyada. Faahfaahin aad u badan ayayna u baahan doonaan. Laakiin introduction-kan haddii aanu tusaale ka bixino, magacyo waxaa ka mid noqon kara sida magacyada qofka person, kuwaas oo ay ka mid noqon karaan man nin, woman haweeney, teacher macalin, Layla sida magacyada dadka caadiga loo bixiyo kale. Place magacyada meelaha sida home guriga oo kale. Office xafiis. City magaalo. China waa wadan ama country. Iyo sidoo kale shayaasha thing sida miis, table, chair, kursi, money, lacag, coffee, qaxwo. Pronouns magacyaalada. A pronoun takes the place of the noun. Pronounka waxa uu qaataa booskii magaca. A pronoun magacyaalka takes wuxuu qaataa the place booskii of the noun ee magaca uu lahaa. Noun-na haddaay ayaanu soo qeexnay waxaa weeye waa name of a person, waa magaca qof uu leeyahay, ama place meel, or thing ama shay. Marka pronounka bedelkii magaca ayaa la isticmaali karaa. Tusaale ahaan, Tom, wiilka la yidhaahdo Tom is a nice person, waa qof wanaagsan. Marka bedelkii haddana magaciisa aan kusoo celin lahayn oon dhihi lahayn Tom, waxaanu isticmaalaynaa pronoun magacyaal oo waxaanu dhahaynaa he always helps the elderly cross the street. Isaga wuxuu mar walba caawiyaa dadka waayeelka ah si ay jidka u gooyaan. Tom, wiilka la yidhaahdo Tom is a nice person, waa qof wanaagsan. He isaga always had iyo jeer helps wuxuu caawiyaa the elderly dadka waayeelka ah cross si ay u gooyaan the street jidka si ay u gooyaan ayuu dadka waayeelka ah ku caawiyaa. Marka pronounka ama magacyaalku waa he. You can pass the test if you study hard. You can pass the test if you study hard. You adiga can pass waxaad awoodaa inaad baasto ama aad barmoosto the test imtixaanka aad ku baasto if haddii you study aad u barato hard si adag. Si xoog leh ama adag haddii aad u barato casharadaada imtixaanka waad ku baasi kartaa. Marka pronounka waa you. I have seen all those pictures. I aniga
have seen waan arkay all those pictures sawiradaas oo dhan. Pronounka ama magacyaalku waa I oo bedelkii magaca la isticmaalayo. Pronounska ama magacyaalada sidoo kale waxaa loo kala qaybiyaa personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun iyo indefinite pronoun. Kuwaas oo dhanna video gooni ah ayaanu uga hadli doonaa si faahfaahsan hadduu ilaah yidhaahdo. Prepositions. A preposition describes the place, time or direction. Meeleeyaha ama prepositionka wuxuu qeexaa ama wuxuu sharxaa meel ama waqti ama jaho. A preposition meeleeyaha is used waxaa la isticmaalaa before a noun magaca hortiis or pronoun ama magacyaalka hortiis. Marka meeleeyaha ama prepositionka wuxuu qeexaa ama uu sharxaa meesha wax ku dhacayaan, waqtiga ama jahada ay wax u socdaan ama directionka. Markaasi prepositionada waxaa loo kala qaybiyaa sida preposition of place, preposition of time iyo preposition of movement or direction. Kuwaasna video gooni ah ayaanu uga hadli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo isbuucyada soo socda oo aanu ku faahfaahin doonaa. Haddii aanu tusaale ka bixino prepositionka, the children are sitting under the tree. The children caruurta are sitting waxay fadhiyaan under the tree geedka hoostiisa. Jumladani prepositionka ku jira waa under. The inside of this house is beautiful. Gurigani gudihiisa wuu qurux badan yahay. The inside of this house is beautiful. Prepositionka jumladani waa of. The plane is flying above the clouds. The plane diyaaradda is flying waxay duulaysaa above the clouds meel daruuraha ka sarreysa. Above waa ka sarreeya, prepositionkana waa above. Adverbs. Adverbs modify a verb. Adverbs falkaabka ama falkaabyada modify waxay wax ka bedelaan a verb ficilka, an adjective sifeeye or another adverb ama falkaab kale. They tell us waxay noo sheegaan how often inta jeer oo wax la sameeyey, where halka lagu sameeyey, when goorta la sameeyey or how ama sida loo sameeyey. Adverbs modify a verb, an adjective or another adverb. They tell us how often, where, when or how. For example, tusaale ahaan, he slowly walked to school. Si tartiiba ayuu ugu lugeeyey ama u socday iskuulka. Marka slowly waa falkaabkii, waa ficil caawiyihii, wuxuu caawinayaa socodkii ama walked waa ficil ayuu inoo sheegayaa qaabkii ama sidii uu socday oo ahaa qaab gaabis ama tartiiba. He slowly walked to school. Si tartiiba ayuu iskuulka ugu socday. He quickly jumped over the fence. He isaga quickly si dhaqso leh ayuu jump uga booday over the fence ooda ama xayndaabka dushiisa. Marka quickly waa adverb, wuxuu noo sheegayaa qaabkii uu booday oo ahaa si degdeg ah. He was seriously injured during the match. Intii ciyaarta ama tartanka lagu jiray ayuu si halis ah u dhaawacmay. Marka falkaabka waa seriously, wuxuu inoo sheegayaa qaabka ama dhaawaca heerkiisa ama xaddigiisa intuu gaadhsiisan yahay oo ah serious oo khatar ah. He was seriously injured. Si halis ah ayaa loo dhaawacay during intii lagu jiray the match tartankii. Conjunctions isku xidhayaasha.
Conjunctions are used waxaa loo isticmaalaa to connect si la isugu xidho words ereyada, clauses jumladaha gaagaaban, or sentences ama jumladaha dhaadheer. Conjunctions isku xidhayaasha are used waxaa loo isticmaalaa to connect si la isugu xidho words ereyada, clauses jumladaha gaagaaban, or sentences ama jumladaha dhaadheer. Tusaale ahaan, I like swimming waxaan jeclahay dabaasha, but laakiin the water in the lake is too cold biyaha lagta ku jira ama harada aad ayay u qabow yihiin. Isku xidhaha waa but, labadan jumladood ayay isku xidhaysaa. I like swimming waxaan jeclahay dabaasha, but laakiin the water biyaha in the lake oo lagta ama harada ku jira is too cold aad bay u qabow yihiin. Tom, wiilka la yidhaahdo Tom, and Mary iyo gabadha la yidhaahdo Mary are both labadooduba good waxa ay ku fiican yihiin at math xisaabta. Marka and ayaa isku xidhihii ah, labadaas magac ayay isku xidhaysaa. Tom and Mary are both good at math. I will give you a present waxaan ku siin doonaa hadiyad if haddii you pass aad ku barmoosto your exam imtixaankaada. Marka if ayaa isku xidhihii ah, labadaasi jumladood ayay isku xidhaysaa. I will give you a present waxaan ku siin doonaa hadiyad if haddii you pass aad ku baasto your exam imtixaankaada. Interjection. An interjunction expresses waxa uu qeexaa a strong feeling dareen xoog badan ama qiiro, and is followed waxaana raaca ama waxaa la raaciyaa by an exclamation mark calaamatu la yaab. Calaamadaas guduudan ayaa waxaa la yidhaahdaa exclamation mark, waa calaamatu la yaab. Tusaale ahaan, oh he lost the game ciyaartii wuu ku guuldaraystay. Marka daas waxa weeye waa interjection, waxay sheegaysaa dareen ama qiiro oo xoog badan. Oh he lost the game ciyaartii ama kulankii wuu ku guuldaraystay. Ouch it is painful marka uu wax kugu dhaco oo kale, ouch it is painful aad ayay u xanuun kulushahay. Wow it is a nice car marka aad aragto gaari qurux badan ama gaari aad la yaabto, wow it is a nice car oo gaari aad u qurux badan. Marka interjunctions waa erayaashaas oo oh iyo ouch iyo way badan yihiin. Marka iyagana hal video oo gaaban ayaa iyagoo fara badan aan kusoo bandhigi doonaa hadduu ilaah yiraahdo. Cashirkii maanta intaas inoo joogo, inta aanu ku kulmi doono cashir kan oo kale ah waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.